Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay bishii September sanadkii 1867 Sarah ku dhalatay wilaayada Louisiana ee dalweynaha Mareykanka. Waxayna ahaayeen labadeeda waalid abiidyo ka shaqeeya beeraha suufka. Ayadana waalidiinteeda ay beeraha kala shaqeynaysay. Waxayna shaqadani ka helayeen nolol maalmeedkooda. Xilligaasi addoomaha midowga ah aad ay ugu adkeed nolosha. Sarah hooyadeed ayaa dhimatay ayadoo 7 sano jir ah. Waqtigaasi jahli ballaaran ayaa ka jiray deegaankaas oo ma lahayn iskuulo ay wax ka bartaan carruurta ay dhaleen waalidiinta midowga ah. Goobaha waxbarashada waxa isku koobay waalidiinta caddaanka ah ciyaalkooda. Carruurta midowga ahna aad ayaa loo tukori jiray oo looma ogolayn in ay imaadaan goobaha waxbarashada isla markaan wax ka bartaan. Sarah ayaa la nooled walaashadka weyn waxayna macaamil xumo kala kulmi jirtay ninka qaba walaashad. Sidaas daraadeed si ay ugu baxdo noloshaan kideedka badan waxay guursatay nin ayadoo weli aan qaan gaarin oo 14 sano jir ah. Waxayna dhashay gabar lagu magacaabo Laylia. 2 sano kadibna waxaa ka dhintay ninkii qabay. Sarah ayaa noqotay garoob ayadoo weli aan gaarin 20 sano. Waxayna dib ugu laabatay noloshii khallafsaneed ee ay shalay ka baxsatay. Waxayna ku noqotay gurigii ay deganeed walaashadka weyn. Halkaasi ayaa iyada iyo cunugteeda yar in muddo ah ku wada noolaayeen. Waxayna nolosheeda ku maareyn jirtay dhaqdhaqida oo bulshada degan deegaankaasi ay dharka u meeri jirtay. Waxayna ugu badnaan isbuucii xoogsan jirtay $1.5. Shaqadan dharmeerida ayay laasimtay. Waxayna jecleed in ay cunugteeda yar wax barato. Dhanka kale waxay ahayd Sarah haweeney aan ka qajilin shaqooyinka hoose ee dadka badanaa ka santaagaan. Waxayna dadweynaha kala kulmi jirtay quursi oo waxaa loo arki jiray haweeney liidata oo xishoodkii ka tagtay. Dhanka kale waxaa jiray cudur Sarah timaha kaga dhacay oo intii badneed timaha ka daadiyay. Waxaana sabab inay Sarah timaha ka gurmaan qubayskeeda oo aad u yaraa, waayo waxaa meerasada joogtada ah looga arki jiray deegaankaasi in ay tahay taraf iyo biyaha oo la beeldareeyo. Waxaa kaloo deegaanka ka maqnaa adeegyada aasaasiga u ah nolosha, gaar ahaan wuxuu adeegaasi ka maqnaa guryaha ay degan yihiin dadka fuqarada ah ee midowga ah. Ma lahayn koronto iyo biyaha ay qasabadaha soo qaadaan. Sidaas daraadeed waxay ahayd meel onley ah oo galaaska biyaha qiimo weyn ka joogo. Haddaba Sarah ayaa xaaladani khallafsan in muddo ah ku jirtay oo dadweynaha ku dhahayeen marka ay tilmaamayaan yaa arkay gabartii madaxa rifrifneed. Arrintaani Sarah waxay ku keentay inay murugooto, laakiin goortii dambe waxay ogaatay in murug meel lala fariista aan dhibka looga baxaynin, bulshadana ay cayda iyo tilmaamaha xunxun ay jooji doonin. Haddaba Sarah isma dhiibin ee waxay bilowday in ay samayso waxyaabo isku qasan oo timaha agoolka loogala dagaalamo, dhanka kalena fududeynaya in timihii gurmay dib u soo laabtaan. Halkan ayuu ka bilowday safarkii guusha ee Sarah. Waxayna wakiil ugu noqotay deegaankeeda shirkad ka ganacsata waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan oo waxay muddo yar oo kooban Sarah ku soo baxday gabar ku wanaagsan suuqgeynta. Laga raysay shaqadii ujrada yareed ee dharmeyrida. Dhanka kalena waxaa dib u soo laabtay kadib markii Sarah bixisay daryeel joogto ah timihii hore ugu dahtay. Waxayna ku soo baxday Sarah haweeney qurux badan oo la damci karo. Intii Sarah ku jirtay shaqadan wax iibinta ayay la kulantay nin lagu magacaabo Charles Joseph Walker oo shaqaale joornaal iibiye ahaa. Ninkan ayay Sarah guursatay wuxuuna garab ku siiyey inay hore u sii gasho suuqa isqurxinta haweenka. Dhankan la baxdo magac cusub oo ah Madam Walker. Asigana waa Joseph wuxuu ku caawiyey inuu joornaal ku daabaco qoraal xayisiin ah kadib lagu faafiyo bulshada dhexdeeda. Intaa wuxuu ugu sii daray la shaqayn joogto ah. Kolkii dambena waxay sanadkii 1910 u guurtay magaalada Indianapolis. Waxayna ka furatay gudaha magaaladan salon timaha lagu hagaajiyo iyo guud ahaan maqaarka dumarka. Waxay kaloo samaysay warshad soo saarta waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan. Dhanka kale waxay furatay iskuul gabdhaha lagu baro qurxinta maqaarka dumarka. Waxayna ugu tala gashay in dugsigaani soo saaro wakiilo u iibiya wax soo saarka warshadeeda. Sarah ayaa markaan awooday inay u gurmato bulshadeeda midowga ah ee dhibaataysan. Waxayna bulshadan dhibaataysan lacag deeq ah u sii marsiisay jamciyad ka shaqeysa horumarinta bulshada midowga ah ee ku nool dalweynaha Mareykanka. Sanadkii 1912 waxay Sarah ka qayb gashay isla markaana kelmad qiiro leh ka jeedisay shir sanadle ah oo ay qabsadaan ganacsatada midowga ah ee reer Mareykan. Waxaana ururkaani aasaasay ninkani oo lagu magacaabo Booker T. Washington oo ah nin howlkar ah oo karti leh isla markaana ah hogaamiyaha bulshada midowga ah ee reer Mareykan. Sanadkii xigay inta aan la qabanin shirka sanadlaha ah ee Sarah ku casuuntay Booker T
in uu imaado gurigeeda waxayna Saara qorshaysay inuu Bookertii la furo xarun ay ayad u dhistay ganacsatada madowga ah ee reer Mareykan. sidoo kale Saara waxay bilowday inay lacagta waxbarashada ka bixiso arday badan oo madow Mareykan ah oo wax ka baranayay macad uu aasaasay Bookertii sanadkii 1881 macadkaasi oo lagu magacaabo Tuskegee. Saara ayaa si heer sare loogu soo dhaweeyay shirkii sanadlaha ahaa ee ay qabsan jireen ganacsatada madowga ah. Saara waxay noqotay wixii intaa ka dambeeyay sanadkii 1913 qof sumcad ballaaran ku dhaxleh bulshada dhexdeeda. haddaba hadda aawkii ugu yeeri jiray xilligii ay saboolka ahayd iskana xamaalinaysay timirifrif waataa dunida haddaad isdulayso way kaaga sii daree laakiin haddaad la gasho halgan adag waad ka adkaanaysaa. kuwii shalay shaqadeeda darteed ku aflagaadayn jiray maanta ayagoo dulaysan ayay tuugsanayaan ay gacmaha u hoorsanayaan. magacii xuma ay ugu yeeri jireenna waxay ugu bedeleen magacyo wanaagsan oo ayaduba ay dooranin. Saara ayaa markii guulo mugle ka gaartay suuqyada gudaha dalka Mareykanka bilowday in wax soo saarkeeda gaarsiiso dalalka dibadda ka ah dalka Mareykanka ayadana diiradda saartay haweenka madowga ah. waxayna shirkadeeda gashay dalalka Jamaica, Panama iyo Cuba ayadana Saara dalalkaasi ka soo hoyisay guulo lixaad leh. waxayna Madam Walker bishii May 25 sanadkii 1919 ku geeriyootay magaalada New York waxayna ku dhimatay da'da 51 sano jir. waxaana sabab u ahaa geerideeda cudurka dhiigkarka. Madam Walker ama Saara waxay xoolaheeda rubac ka mid ah ku sadaqaysatay dadka masaakiinta ah inta soo hartayna waxay ugu tagtay inanteeda Leila. si markasta loo xasuusto Madam Walker ayaa sanadkii 1998 xafiiska adeega boostada ee dalweynaha Mareykanka wuxuu soo saaray tiim barawata magaca Madam Walker.